anigoo ah maxamed maxamuud rabbi caruufku magac dheer ugaaska tumaalada ah oo guud waxaan halkan ka cadaynayaa gabadhii aan adeerka u ahaa oo Gurceel lagu kufsaday in ciidanka amnigu uu soo qabtay oo si walba uu ku raadiyay soona qabtay ilaahay ku guuleeyay maantana galabtana aan qarqariyadii awal haysa iga bacday oo ciidanku iga bi'iyay oo ay soo qabteen inaan ku qanacsanahay xariga iyo silsiladaha iyo katiinadaha ay ku jiraan oo aan arkay inaan ku qanacsanahay shareecada shareecada ilaahay in loo mariyana waa ku qanacsanahay waana mari doonaan ilaahay idankiisa awluhu allah subhanahu wa ta'ala mahad u sugnaatay isku kaana keenay si amniyo inaan mataqaana degmadeena iyo gobolkeena uga shaqeyno mar labaad waxaan rabnaa halkaan inaan galabta ku soo bandhigno arrimo ka dhacay degmadan Gurceel oo dadku bariyahan isweydiinayeen in amnigu sidoo wax uga qabtay maamulku wax uga qabtay waxaan rabnaa inaan galabta u soo bandhigno oo cadayno in amniga degmada Gurceel ay soo qabteen dad dambiilayaal ah oo degmadan Gurceel dhexdeeda wax ku sameeyay mataqaana waxa la yiraahdo kufsi ayagaas oo insha Allah taala si wanaagsan oo sharaf leh ay u soo qabteen maamulku u soo qabteen amniga qiimihiisa kala duwan gacanta lagu hayo haddana ay xiran yihiin maxkamad sugan ay yihiin rajeelina insha Allah taala waqtiyaasha soo dhowna in mataqaana la mari doono sharciga islaamka wixii ay ku yeeshaan waxaan rabnaa dadweynaha inaan la wadaagno una sheegno in dadkaas gacanta lagu soo dhigay afartaas qof gacanta lagu hayo amnigu gacanta ku hayo wax la yiraahdo la sii daayay iyo lama soo qabanayo inay galabta qadka ka baxdo waxaa kala mahad u sugnaato halkaan uga mahad celinaya ciidamada amniga degmada Gurceel ee Galmudug ka jawaabay falkii iyo xooshnimada ahaa ee ay ku tallaabsadeen dad ku nool magaalada Gurceel arrintaas dal iyo dibad waa laga xumaaday si qaasa waxa uga howlgalay ciidamada amniga si sharaf leh ay uga howlgaleen waana la soo qabtay dambiilayaashii waxayna la wadaagaan tiiraanyada ummadda Soomaaliyeed ee ka wada xumaata dal iyo dibad qof kasta islaam ee caqiido leh ama iimaan leh wax laga xumaado weeye waa dhamaantay wax aan ka gubanay anigu waxaan ahay xildhibaanka beesha sida qaaska ay ugu dhacday arrintaas assalaamu calaykum anigoo magacaygu yahay Nageeye Maxamuud Rabbi gabadha yarta oo saqiirka oo kufsigu ku dhacayna aan aabaheed ahay afartii nin ee kufsatana alxamdulillah rabbil caalamiin dhabarkayga ay taagtaagan yihiin ciidamada ammaanka ee Galmudugna ay soo qabteen ay ku mahadsan yihiin maxay ka gaadho waxaan ogeysiinayaa adduunka iyo meel walba oo ku qanacsanahay sida loo soo qabtay maxkamad sugan ay yihiin alxamdulillah rabbi saasan aan ay ku mahadsan yihiin dareenkayga aad iyo aad u xumaaday ilaa ay hadda xun yahay waa arrin murugale waxaan ka leeyahay waa la soo qabtay kii ugu dambeeyay shalay galaba la soo xiray indhahaygan ku arkaa afartii dambiile oo xiran oo silsilad ku wada xiran indhahaygan ku arkaa way xiran yihiin wayna joogaan waxay joogtaa Gaalkaayo Hargeysaan u qaadnay caafimaadaan ugu qaadnay in badan ay ku maqneed garowaan soo marinay habeen hore ayaan Gaalkaayo keenay Gaalkaayo joogtaa iskuulay dhaganaysay jaamacada loo bilaabi rabay 2019 ablaalay dhiganaysay Abdi Hakiin Taahir Abdulle Abdullaahi Ahmed Ciise Abdi Ciise Xasan Ismaan iyo Saataq Abdi Rashiid Aadan magacyadoodu ay kala yihiin waxaan soo waafajinaynaa hadii Allah idmo shareecada islaamka xukunka ay ku leeyihiin waa la marsiin doonaa idanka Ilaahay si cadaalad ah ummadana waa loo soo bandhigi doonaa xukunka ay yeeshaan waxaan rabnaa bulshadu inay ku qanacdo meel walba ay joogaan hadii Allah idmo